San Salvador waxay ahayd caasimadda ugu badan dilalka ee adduunka. Sesot waa xabsiga ugu weyn adduunka, waxaana loo dhisay in dembiyada laga cirib tiro San Salvador. Maanta waxaan dalxiis u tageynaa El Salvador. bishan oo kaliya gudaheeda waxaa la dilay 508 qofood iyagoona lagu dilay gudaha El Salvador. dalkani waa dalka ugu rabshadaha badan adduunka. arbacadii la soo dhaafay in ka badan 2,000 oo xarig ayaa la sameeyay walibana 4 maalmood gudahooda. tani waxay ka dhigan tahay in xaaladaha xabsigan ay noqon karaan kuwa bini'aadamtinimo ka baxsan oo liidata. kooxo burcad ah ayaa la sheegay inay isku dayayaan inay ka argutaan dadka daacadda ah. haddii ay sidaas sameeyaan hal cunto oo kaliya kama heli doonaan gudaha xabsiga. aan aragno inta saaxiibood ay ku jirta xabsigan una adkeysan kara gaajada. xitaa qaar idin ka mid ah waxaa laga yaabaa inaad u aragtaan tani inay tahay mid xad dhaaf ah, laakiin maanta waxaan rabaa inaan idin tuso sida dal uu ku noqday xarunta dilalka. afduubyada iyo rabshadaha karanka haweenka looga nadiifiyay dhammaan wasaqdiisa. arrintan ogeed maanta waxaan u safraynaa El Salvador, waxayna 11,000 oo kiiloomitir u jirtaa Istanbul. fadlan ha ilaabin muuqaalka inaad like inoo saartaan, sidoo kale janaalka inaad kusoo biirtaan oo aad nagu taageertaan ku beerista El Salvador. adinkan haddii aad rabtaan inaad naga mid noqotaan oo aad noqotaan dadka ku jira El Salvador. sanadkii 2015 waxay ahayd caasimadda dilalka ugu badan adduunka marka loo eego tirada dadkeeda. xaaladani waxay si weyn u saameysay howlgallada Barrio 18 iyo MS-13, laba ka mid ah kooxaha burcadda ugu khatarta badan adduunka, kuwaas oo ku jiray El Salvador. dagaalka u dhexeeyay kooxahan iska soo horjeeday dadka caadiga ah ee El Salvadorka ah ayaa ka ahaa bartilmaameedkooda. tan iyo Janaayo 2023 fowdadii oo dhan way dhammaatay. Sesot, xabsiga ugu weyn adduunka, ayaa la aasaasay taariikhdan. biilayaasha ugu khatarta badan adduunka waxaa lagu hayaa meel 75 kiiloomitir u jirta magaalada, iyadoona ah dhul dhan 165 hektar. maxaabiistani waxay ku jiraan kormeer joogto ah. xabsigan wuxuu leeyahay 850 oo kaamir amni ah, waxaana waardiyeya 600 oo askari ah. tallaabooyinka amniga waxaa lagu fulinayaa heerka ugu sareeya. maantana waxaan kusoo safraynaa kuna soo baashaaleyna halkaasi. waxaa jira tallaabooyin amni oo adag wadooyinkana u horseeda Sesot. gaari aan leen taargo diiwaan gashan looma ogola inuu ka gudbo aagaasi. kadib bilooyin oo dadaal ah, ugu dambeyn waxaan helnay maanta ogolaansho aan ku galno Sesot, xabsiga ugu weyn adduunka, si aan idin tusno maanta nolosha gudaha taala. waxyaabihii ugu horreeyay aan halkan kala kulannay ayaa waxay ahaayeen in la jiray signaalka telefoonka. mar kale xilliga idinta oo wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta xakameynta argagixisada ee Sesot. maxaabiista halkani ku jirta qaar ka mid ah waxay xukuman yihiin in ka badan 1,000 sano. kaliya sababtoo ah waxaad arki doontaan iyagoo aad u degan, sidoo kalena caddeecsan xabsiga, xiranna dhar cad oo nadiif ah. macnaheeduna maahan inay yihiin dad iska caadi ah. hadda waxaan bilaabaynaa habraaca gelitaankeena ee ogolaanshaha xabsiga. arrintan awgeed waxaan u baahanahay dhammaan walxaha birta adeegsida inaad ku ridaan halkaani. horantaan gelin xabsiga dhammaan alaabteeda keedkan waxaan dhiganayaa halkaan. markana keena oo alaabtiin waxaad dhigi kartaan halkaan. ka gudbaynaa markaani mashiinka X-rayga kadib bartakoolkii ugu horeeyay. marka haddana waxay nagu baari doonaan mashiin sawir qaade ah oo la mid ah kuwa yaala garoomada diyaaradaha. baaritaan dhammaystiran maadaama tani ay tahay xabsiga ugu weyn uguna ammaanka badan adduunka. iyagu waxay ku baarayaan dhowr jeer, waxaana jira baare amni oo badan. sidaas darteedna waqtiyo fara badan ayay qaadanaysaa inaad gudaha usii gasho. habka loo maro dembiilayaasha lagu qabto falalka la xiriira kooxaha burcadda aad ayuu ugu duwan yahay dembiilayaasha laga soo aruuriyo saldhigyada booliiska iyo xabsiyada xalliga ah ayaa dhowr jeer la baaraa. kadib dembiilayaasha waxaa loo gelinayaa dharkaani, waxaana basas loogu qaadayaa Sesot oo ah xarunta la dagaalanka argagixisada. biilayaashani waxay gudaha galayaan kadib marka la yeeriyo magacyadooda, kayna kasoo gudbaan nidaamyo amni oo aad u horumarsan. biilayaasha waxaa lagu baarayaa qalab tiknoolajiyad oo heer sare leh, taasi oo awood u leh inay sawirto xubnahooda gudaha. tani waxay suurtagelinaysaa in la ogaado walxaha sharci darrada ee ku qarsan jirkooda. hadda waxaan weydiin doonaa haddii wax la isku dayay in si qarsoodi ah loo soo geliyo ama lagu qabtay. halkaani ma ahan Sesot gudaheeda, laakiin dhowr sano ka hor markii aynan haysan tiknoolajiyadda noocan ah, mid ka mid ah hababkay adeegsadaan ururada argagixisada wuxuu ahaa inay isticmaalaan xubnahooda iyo xubnaha qoyskooda si ay walxo soo geliyaan gudaha, iyagoona adeegsanayaan dariiqyada afka ama meelo ka mid ah jirka. si kastaba ha ahaatee, hadda waxaynu ku mahadinaynaa tiknoolajiyadani. hadda wax walba waxaan ku ogaan karnaa waqtigeeda. habooyin amni ayaa sidoo kale loo dejiyay maxaabiista inta badan bixiya macluumaad been ah oo ku saabsan aqoonsigooda dhabta ah, iyagoona laga qaadayo faro si loo ogaado diiwaanada dembiyada horey u soo galeen. guud ahaan marka la soo qabto tuhmahani dhammaantood ma wataan wax aqoonsi ah, taa beddelkeedana mas'uuliyiinta
waxay siiyeen magacyo been ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii uu jiro diiwaan dembiyeed, si toos ayaanu helaynaa aqoonsigooda dhabta ah. Kadib marka la aqoonsado xubnaha kooxaha burcadda, waxaa loo qaadaa qolalkani si halkaas uga qaataan inta ka dhiman noloshooda. Kiin halkan soo gala mar dambe kama bixi doono. sidoo kale xubnaha kooxaha burcadda ee ku jira xabsigani ma lahan maalmo booqasho ah, xitaa iyagoo ku jira xakameyn. Qaar ka mid ah dambiilayaasha ururadani ayaa si wada jira waxay adeegsadeen qoyskooda oo soo booqda ay u gudbiyaan macluumaad waxtar u leh fulinta dembiyada. Inta ka dhiman noloshoodana cid kale ma arki doonaan marka laga reebo ilaalada halkaani jooga. Waa murugo in la ogaado arrintani, laakiin markaad ogaato keliya dhowr ka mid ah xubnaha kooxaha gudaha ku jira mas'uulka yihiin dhimashada in ka badan 200 qof oo rayid ah, way adkaanaysaa in loo naxariisto. Booliiska ka shaqeeya xabsiga Seesood waxay baahidooda nasasho ku daboolaan qol jiif oo ku yaala gudaha xabsiga inta lagu guda jiro shaqooyinka dhaadheer. Waxaa sidoo kale jira meel gaar ah oo ay ku xirtaan gadhka ama timaha, sidoo kale ku feereystaan dharkooda. Sidoo kale gudaha xabsiga waxaa ku yaala qol jimicsi oo ay booliiska ku ilaashadaan xaaladooda jireed. Waqtigooda firaaqada ah waxay halkan yimaadaan inay sameeyaan jimicsi. Aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo qaab jireedka wanaagsan, maadaama uu yahay tiirka ugu weyn ee howlgal kasta oo aan halkan ku fulino. Laakiin kaliya ma tixgelino caafimaadka jirka, sidoo kale waxaan tixgelinaa kan maskaxda iyo dareenkaba. Derbiyadan waaweyn ee dhererkooda gaaraya 9 mitir ee ku wareegsan xabsiga Seesood waxaa ku rakiban xayndaab koronto leh. Ilaalada ayaa ka feejigan munaaradaha amniga, kuwaas oo la dhigay qiyaastii 50 mitir kasta. Tani waxay xaqiijinaysaa in amniga xabsiga uu yahay heerka ugu sarreeya. Nidaamka koronto ee halkani wuxuu ku xiran yahay ilo kala duwan. Si kale haddii aanu dhigno, waxay ka heli karaan koronto ilo kala duwan haddii ay dhacdo koronto go'da ama weerar kastaba. Intaa waxaa dheer, waxaa jira ahaan biyo ah oo awood u leh inay bixiso biyo ku filan si howlgalladu u socdaan muddo toddobaad ah, maadaama habab sida sun ah lagu daro biyaha ama lagu wasakheeyo walxo sun ah oo lagu tijaabiyey meelo kale oo adduunka ka mid ah. Tallaabooyinka hortagga ayaa sidoo kale halkan looga qaaday si looga hortago khatarahaasi. Hadda waxaan idin tusayaa qalabka ilaalada halkan isticmaali lahaayeen haddii lacal ay dhacdo rabshad. Hub iyo qalab fara badan ee halkan diyaarsan oo sugaya. Waxay kale inoo sheegeen waxyaabaha ay gudaha ku filayaan inay ka mid tahay weeraro, baaritaano gaar ah iyo qolalka galaan. Kani waa hubka ugu badan ee gudaha lagu isticmaalo. Xitaa lacal haddii ay dhacdo rabshad, waxay sidoo kale leeyihiin dhar si gaar ah loo qalabeeyey si ay u sameeyaan faragelinta ugu horeysa. Dharkan ayaa muhiim u ah xakameynta xaalad kasta oo ka dhacda gudaha. Marka maxaabiista laga soo saaro qolalkooda, waxaa lagu xiraa silsilado si dhaqdhaqaaqooda gebi ahaanba loo xadido. Waxayna adeegsadaan silsiladan aad ku aragtaan halkan. Dhinac waxaa loogu talagalay in lagu xiro lugaha, halka dhinac kalena loogu talagalay in lagu xiro gacmaha. Haddii ay isku dayaan inay baxsadaan iyagoo ku xiran silsiladahani, waxaa laga yaabaa inay noqdaan curyaano. saaxiibayaal, dadkani waa dambiilayaal aad halis u ah, taasina waa sababta loogu qabtay xabsigani tallaabooyinka ugu sareeya ee amniga. Dadkani ma ahan dad iska caadi ah, waa dilayaal u tababaran si adag. Haddaba sidee bay El Salvador ku gaartay ilaa heerkani? Xubnaha sharafta leh ee Koongareeska, martida sharafta leh iyo muwaadiniinta Mareykanka intii lagu jiray dagaalkii qabooba, dhulka iyo hantida El Salvador oo idil waxay gacanta u gashay 14 qoys oo keliya. Saboolnimo xad dhaaf ah iyo sinaan la'aan ayaa waxay kicisay dagaal sokeeye. Dhulka dariska leh Mareykanka wuxuu ku taageeray dowladda iyo militariga El Salvador, kuwaas oo maamulayeen milkiilayaasha dhulka. Sidoo kale kuwaasi waxay ka walacsanayeen kororka nidaam ee shuuciga. Dowladda El Salvador waxay lahaysay inta badan ragga qaangaarka ahaa. Kumanaan caruur ah ayaa waxay noqdeen agoon. Caruurtii ku ururtay bartamaha magaalooyinka ayaa ugu dambeyn lagu qasbay inay u haajiraan Mareykanka si ay uga baxsadaan rabshadaha iyo saboolnimada. Inta badanna caruurtii magangelyo ka raadsaday Los Angeles ee Mareykanka waxay la kulmeen rabshadaha kooxaha burcadda. Waxay samaysteen kooxo iyaga u gaar ah si ay isaga difaacaan kooxaha Mareykanka. Kooxaha loo yaqaano MS-13 iyo Barrio 18 oo lagu aasaasay Los Angeles ayaa waxay noqdeen qaar ka mid ah kooxaha ugu khatarta badan adduunka. MS-13 iyo kooxo kale waxay yiraahdeen kuwani maaha dad, waa xayawaano. Iyadoo MS-13 iyo Barrio 18 loo arkay khatar weyn, dowladda Mareykanka waxay bilowday inay dib u celiso dhammaan Salvadorankii ku lug lahaa dembiyada dalkooda. Dowladda El Salvador oo weli kasoo kabanaysay dagaal sokeeye ayaa si lama filaan ah u aragtay kumanaan xubnood oo burcad ah oo dalka soo galaya. Xubnahan burcad ah oo aad ugu abaabul iyo nidaam fiicnaa marka loo eego dowladda iyo militariga El Salvador waxay la wareegeen xukunka
dalka. wasiirkii El Salvador wuxuu isbedelay markuu xilka qabtay Nayib Bukele sidoo kale waxaa loo yaqaanaa El Turco. wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah wuxuuna qaaday talaabooyin adag oo ka dhan ah kooxaha burcadda ah ee El Salvador. qof kasta oo halkan ku aragtaan waa mid kamid ah 1450 askari oo cusub oo ku biiraya dagaalka ka dhanka ah ee kooxaha dambiyada. inta lagu guda jiro howlgalkani, taatuuga ayaa waxay sababtay in loo adeegsado cadeen ahaan, taasi oo sababtay in ka badan 60 kun oo qof la xiri doono loona diri doono xabsiga Sesol. kadib markii la aasaasay xabsiga, heerarka dambiyada ee El Salvador si weyn ay hoos ugu dhaceen. madaxweyne Nayib Bukele ayaa ku dabaaldegay bartiisa Twitterka bishii Oktoobar isagoo xusay 365 maalmood oo buuxda oo aan hal dil xataa ka dhicin dalkiisa. haddana waxaan sii tegaynaa meesha ay joogaan maxaabiista. saaxiibayaal, waxaan rabaa inaad ka fikirtaan arrintaani. badan oo halkaani jooga mar dambe noloshooda inta ka dhiman xitaa kama fikiri doonaan inay arki doonaan meel kale, taasi oo ay wacan tahay dembiyada ay galeen markii ay gaaraan 18 sano. waxayba u badan tahay inta ka dhiman noloshooda inay halkan ku qaadan doonaan. runtii hadda waxaynu ku jirnaa meel u eg filim. aniga xitaa hadda waxaan dareemayaa waxyaabo aad u yaab badan. hadda waan soo gaarinay meesha aan rabnay. albaabkan gadaashiisa waxaa jooga maxaabiis noloshooda oo dhan ay halkaani ku qaataan. bal kaaliya aan wada aragno meeshaani waa meel nuucee. xilligaasi waxaa naga dhexeeyey annaga iyo dambiilayaasha ugu sumcad xun adduunka oo keliya biraha qafiska. dhammaantoodna waxay iisoo eegayeen si feejigan. bannaanka waxaa isku dagaalo xubnaha kooxaha ee burcadda ah, laakiin gudaha xabsiga marka lagu jiro waxay ku jiraan qolal isku mid ah. sidoo kalena dhammaantooda waxay xiran yihiin dhar iskuwada mid ah. halkaani dhammaantooda waxay ka wada sameeyeen nidaamka isku mid ah, qofna qofka ma sarreeyo. dadka jooga xabsigani seesooda ilaalada ah dhammaantooda waxay qarsadaan wejigooda si ay u badbaadsadaan ayaga naftooda iyo nafta qoyskoodaba. kasta oo gudaha ku jira marka laga reebo kuwa leh ilaaliyayaal waxay xirtaan maaskaro. taa dadka sawirqaadayaasha waxay qaataan maaskaro sababtoo waxay noo muujiyaan sida halis u yihiin kuwaani. laakiin waxaa la sheegay inay tahay ujeedo nadaafad, laakiin aniga aragtidayda waxay maskarooyinka keliya u xirtaan filimka. oo malaynayo inay mar walba xirtaan, oo waxay ila tahay keliya inay meesha ku muujinayaan show. maadaama ay maxaabiista aad u xiiseeyaan, waxay sidoo kalena mararka qaar ay daawadaan kaamirada. haddii ay wax inoo sheegayaan, gebi ahaanba waa mamnuuc in lala hadlo. xabsiga Seesod, maxaabiistu waxay joogaan qaybo leh 32 qol. qof kasta oo halkaani ku jira wuxuu qaadi karaa 100 qof. maxaabiistan sidoo kale lama siiyo hilbaha iyo digaagada. xitaa marka cuntada loo qaybinayo waxaa kormeera qaybo kale oo ilaala ah. maxaabiista halkan ku jirta ayaga ayaa saxankooda dhaqda kadib markay cunaan cuntada. sidoo kalena halkaani qashinka ay ku shubto halkaani ay ku gurayaan. biyaha iyo cabaanaha waxay ka helaan badbaadiyaha buluuga ee yaala halkan. si looga hortago dab markay dhacdo rabshad, qolalkooda looma ogola sariiraha jiifka ah. maxaabiistu waxay seexdaan sariiraha birta ee dabaqyada badan leh. howlgallada maxkamaduhu aad bay ugu duwan yihiin waxa aan garanayno. hadda waxa iga dambeeya maxaabiis waxaa dhab ahaantiina gudaha maxkamadda loo galayaa halkan. maxaabiistu mar walban waxay ku xiran yihiin dhegeysiga maxkamadda iyadoo loo marayo shaashada aad halkani ku aragtaan. sidaas darteed xitaa dhegeysiga maxkamadda gebi ahaanba waa mamnuuc inay ka baxaan derbiyadaasi. taatuuyada ku xardhan jirkooda waxay leeyihiin meelo gaara oo muhiim u ah dhaqankooda kooxaha MS-13 iyo Barrio 18. qofku waxay u muujinaysaa booskiisa, darajadiisa, daacadnimadiisa iyo kooxdiisa iyadoo loo marayo taatuuskiisa ama taatuuyada ku xardhan jirkiisa. taatuuga ku xardhan meelaha muuqda sida wejiga iyo qoorta waxay muujiyaan darajo sare ee kooxda dhexdeeda ah. si kale haddii loo dhigo, keliya xubnaha kooxaha ee darajada sare leh ayaa waxay xaq u leeyihiin inay wejigooda ku samaystaan taatuug. wejigiisa uu ku yaala taatuug markuu yimaado guri meeshaasi ku yaala ama shaqo waxay ka dhigan tahay halkaas inay timaaday geeri. macnahooda ayaa waxay tahay taatuugaas wuxuu ahaa sir u dhexeeya xubnaha iyo kooxaha sanado fara badan. laakiin dadaalo sanado ah kadib, mas-uuliyiinta waxay ku guuleysteen inay bartaan macnahooda. taatuuga saligyada ee aad aragtaan waxay astaan u tahay oo ay tilmaamaysaa inay ka duwan tahay xubnaha kooxaha ee la adoonsado. xubin kooxeed waliba oo leh taatuugani wuxuu la mid yahay isagoo galay dembi sida afduub iyo xarig. sidoo kale qof waliba oo leh taatuuga masraxa waxay muujinaysaa inay dileen dhowr sarkaal oo booliis ah. gaangiska aad bay u ixtiraamaan dadka leh taatuugani gudaha xabsiga iyo banaankiisaba waa laga ixtiraamaa. taatuuga shabaqa wuxuu astaan u yahay kobaca kooxda. taatuugani wuxuu muujinayaa inuu qofka ka shaqeeyo qorista xubno cusub oo kooxda ka mid ah. taatuuga ilmeynta ama taatuuga oohinta waxay astaan u tahay in xubin kooxeedkani ay qaadatay nolosha dhowr qof oo rayid ah. 3 taatuug oo oohin ah waxay muujinaysaa in qofka nolosha kumanaan rayid ah uu qaatay ama uu dilay. taatuuga gacmaha ducada wuxuu astaan u yahay in xubin kooxeedkani ay ku noolaayeen nolol aad u xun oo ay sababeen xanuuno fara badan, isla markaana ay raaligelin u dirayeen hooyadood. taatuuga xidigtan waxay muujinaysaa inaad tahay qof hore loo qabtay oo xabsi la dhigay dembiyadiisa awgeed. gaangiskaasi wuxuu xaq u leeyahay inuu qaato taatuug xidigka sanad kasta oo uu ku qaato xabsiga.
1 2 3 4 hadda dadkani waxay ku jiraan howlaha jimicsiga maalinlaha ah waxayna sameynayaan exercise-ka stretching-ka waa laga maarmaan maadaama maalintii oo dhan halkan ku jireen waliba ayagoo fadhiyo kuna jiifa sariir bir ah waxayna maalin kasta yeestaan kaliya nus saac si ay u sameeyaan jimicsiyadani laga reebo tan mar walba waxay ku jiraan qolalkooda maxaabiistan aad ku aragtaan halkani ayaa waxay sugayaan inay galaan qolalkooda inay sugayaan iyagoo si buuxda u wajahaya derbiyada madaxooda soo dhacaya gacmahooda iyo cagahoodana silsilad lagu xiraya ilaa wax walba ay diyaar u noqdaan markii ay diyaar u noqdaan ayaa gudaha loo ogolaanaya jirto beer ay maxaabiista ku baxsan karaan macnaha ay ku socon karaan iyata qolkooda ay soo bixi karaan markay sameynayaan jimicsiga ama tababarka diimeed ama baahiyaha caafimaad qoshooyinka dhakhtarka waxaa lagu sameeyaa toos hortooda qolalkooda ma ahan xitaa inay wax xiriir ay yeeshaan dhakhtarka sidaas darteed waxaa loo fadhiisiyaa meel fog waliba ka xiran gacmaha iyo lugaha dambiilayaasha halkaani jooga run ahaantii waa kuwa halis badan oo leh samcad xun xitaa ma saadaalin karaan waxay sameyn karaan sidaas darteed talaabooyinka amniga ayaa ugu haya heerarka ugu sareeya kuwaani waa qolka go'doominta waxaana qaladaadka ku xirna qolalkan waxaan ku hubin karnaa xaaladooda caafimaad anagoo adeegsanayna laambad bihaan waa mugdi halkani ma jiro wax iftiin ah kaliya wuxuu ka baqsan yahay dalalkani kore mana lahan hawo mareen wax kalena kuma jiro halkani marka laga reebo musqul iyo sariir oo shamiinta ka samaysan hadda waxaan joognaa SHU saaxiib kani ayaana la keenaa maxaabiista xukuman tin masoogalay halkani gebi ahaanba waa mugdi tana inta kor ayaa waxa ku yaala daloolkan ay ka garan karaan hadii ay tahay maalin ama hadii ay tahay habeen halkani ayaan waxay ku dhaqdaan gacmahooda halkani waxa ku yaala musqusha hadda waa wasakh tani waa meel si joogto loo isticmaalo ka fikir inaad halkani ku qaadato maalintaadii oo dhan ama xitaa noloshaada oo dhan runtii way adag tahay waxaan idin tusayaa sida mugdi ay halkani uu yahay marka aan damiyo iftiinka gacanteeda ku jira dadkani waxay u baahan yihiin waqti si ay u fahmaan waxa ay sameynayaan ayaaba xun ay sameeyeen waxaana laga yaabaa inay kaliya ku dhaqaaqeen waxa ay arkeen laakiin mar dambe waa arintan in la joojiyaa halkan ayaa lagu sameeyay isbedelkaas San Salvador waxay ka soo baxday caasimadii daliilka ugu badneed waxayna noqotay caasimada ugu nabadoon ee America maanta gudaha El Salvador dadka waxaa laga yaabaa inay socora wadooyinka ugu socdaan markii ugu horeysay noloshooda waxaa jirta caraweyn oo ka dhex taagan dadweynaha iyo dawladda karanka iyo kooxaha burcadda qabriga xubnaha kooxahani ayaa la burburiyaa sabab la xiriira astaamaha ay wataan kadib markii aan arkay meelahani nolosheeda waxaan hadda u arkaa si ka duwan sidii hore joogitaanka seesood waxay xasuusisay waxyaabo badan oo ku saabsan nafteyda mar walibana waxaan raadin jiray nafteyda waxaan arkay barafka waqooyiga iyo lamadegaanka koonfureed mar walibana waan safri jiray si aan u helo nolol sidee bay noqonaysaa nolosheeda haddii aan camal wanaagsan ugu tagin dunida adigaan ku weydiinayaa saaxiib bal ka waran haddii aad halkan ku noolaan lahayd int noloshaada ka dhib noolaha dunidu joogo wuxuu dunidu jooga ama sababta uu joogo ayaa waxay tahay si uu u helo xorriyad noloshiisa inta ka dhiman wadaanka Allah inaga saaro sidoo kalena dhammaan walaaleen muslimiinta abaareysan ku dhibaataysan dhibaatada Allah ka qaado wala dulmiyayna xaqooda Ilaahay ha u dhiciyo digana ha ilaabin muuqaalkana like noo saarto sidoo kalena aad noqoto xubin kamid ah channelkeena ana kana saaxiib yaal aan si toos ah wada saamin oo aan si toos ah wada safarno